السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن wanaagsan daawadayaal idin ahaantiin halkaani waa warbaahinta Barawe qodobada maanta warkayna Barawe news ugu door korroon waxaa kamid ah daawadayaal. Ra'iisul Wasaaraha dalkaas Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa sheegay inay dawladdiisu ay qaadayso tallaabo kasto ay uga hortagayso dhaqdhaqaaqyada dastuurka dalka Itoobiya ka hor imaanaya. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump wuxuu sheegay xanuunkan Mareykanka ee COVID-19 uu ku tilmaamay weerarkii ugu xumay oo la kulmo dalka Mareykanku. wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya Marweyne Abikarna waxay sheegtay inay 55 qof oo hor leh xanuunka COVID-19 laga helay. iyo dalka Liibiya ayaa dagaalkii ugu xumay ka socda maalmihii ugu dambeeyay. intaas in kala Barawe news oo faahfaahsan daawadayaal ku soo dhawaada. waa maalmo khamiis ah taariikhdu ay ku beegan tahay 7 bisha May 2020. aanan ku bilownay daawada Ra'iisul Wasaaraha dalkaas Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa sheegay inay dawladdiisu ay qaadayso tallaabo kasto ay uga hortagayso wuxuu ugu yeeray wax waliba ka hor imaanaya dastuurka waddanka Itoobiya. Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ayaa xaaladda dalka Itoobiya ay ku sugan tahay warbaahinta dalka Itoobiya shacabka kala wadaagay. Ra'iisul Wasaaraha ayaa shacabka u sheegay idoo maalmihii ugu dambeeyay dalkaas Itoobiya ay ku soo fooliheen doorasho idoo guddiga doorashada dalkaas Itoobiya ay dib u dhigeen doorashada waddankaas Itoobiya. xisbiyada mucaaradka ee dalkaas Itoobiya ayaa ku adkeysanaya inay dhacayso doorasho ay ku adkeysanayaan iyadoo gobollo ka mid ah gobollada dalkaas Itoobiya ay sheegeen inay qabanayaan doorasho. madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa xanuunka Mareykanka ee fayraska ku tilmaamay weerar kii ugu xumay ee dalka Mareykanka uu la kulmo wuxuuna sheegay inuu Shiinaha dowsan si degdeg ah ula tacaali lahayd cudurkan oo dunida ku sii faafin wax laga qaban lahayd. Trump ayaa sheegay saameynta cudurka COVID-19 uu u geystay Mareykanka inay ka daran tahay waxyaalihii ugu badnaay ee Mareykanku naftigiisa dunida uu ku sameey jiray, iyadoo soo qaatay weerarkii September 2001 iyo meelo badan oo ku tilmaamay inay ka dhibaato badan xanuunkan Mareykanka ee dunida. madaxweyne Trump ayaa isaguna wuxuu sheegay inuu ka fiirsan doonaan wuxuu ugu yeeray inay tallaabooyinka ay ka qaadi doonaan Shiinaha taasoo uu ka dhalatay Shiinaha inuu xanuun dhibaato badan u qariyo dunida. bilowgii xaaladda degdega ee dalkaas oo Shiinaha xanuunkan ka soo bilaabanayay, Beijing ayaa sheegtay Mareykanku inuu ka gabangaabiyay jawaabihii ee ka bixi cudurka Mareykanka oo doonaya inay mas'uuliyadda uu qaato. tan iyo markii cudurkan COVID-19 oo bishii December oo ka bilowday magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha, Mareykanka ayaa soo gaaray cudurka COVID-19 dad gaarayana wuxuu 1.2 milyan oo qof ayuu Mareykanka ku dhacay, halka Mareykanku hadda dadka ugu dhintay xanuunkan Mareykanka ay 73,000 oo qof ay kor u dhaafeen. wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya Marweyne Abikar Nuur ayaa sheegtay in 55 qof oo hor leh laga helay xanuunka COVID-19 gudaha Soomaaliya. wasiirka ayaa sheegay in tirada guud ee dadku ay sii cagacagaynayso 928 qof, dhimashaduna ay sii marayso dad gaaraya 44 ruux. dalka Liibiya ayaa dagaal kii ugu xumay maalmihii ugu dambeeyay oo ka socday caloosha shaqaystayaal ka tirsan shirkada gaar loo leeyahay oo dhanka militariga ka taageera jaranka baxsadka ee Khalifa Haftar ayaa waxaa lagu soo sheegayaa in meelo badan laga sifeeyay. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ku soo waramaysa caloosha shaqaystayaal u qaabilsanay Khalifa Haftar taatikada military inay dowladda ku-meelgaarka ee Liibiya ay ka burisay deegaano aad u badan. daawadayaal warkayna caalamka Barawe news intaas ayuu ku egyahay. dhinaca farsamada waxaa noo fadhiya Engineer Saki anigu Cabdiraxmaan warka ayaan la socodsiinayay. faafinta warka waa xaggeena, sidaas iyo nabadiino daawadayaal.